bishaadu shan qof ka badan aad baa maasan tahay dadka fiisaha ka doonaya Itoobiya dhalinyaradan kaliya ma waxa ku jira hooyooyin iyo gabdho ka yimid magaalooyinka baxsan bal waxa weydiinayaa magacaaga aniga Saciid Axmed Maxamuud baa la yiraahdaa Saciido maxaa halkan ku keenay halkees ka timi waxaan ka imid Boosaasan ka imid waxaan u imid fiiso inaan ka qaato Itoobiya 3 bilood baan joogaa 3 biloodna waa la ahay barsharaxaadka bixisay ku laada ilaa waxa way lacag baa bixinaysa waa lagu shaqeynaya aniga waaba la ahay geedkaasaan fadhiistaa ka hoydaa ilmaha yarka baan wataa gacanta aan ku haysto xafaayadeedii baan la ahay adduunkii wax kasta waa iga go'een transportkii waa iga go'ay wax kasta waa iga go'een halkaas aan ku dhibanahay 3 biloodna waa ii dhamaatay marka nidaamkii lagu talagalay in fiisa lagu qaato Soomaaliya marin waa mare warqadii kulli waa soo dhameystay hadda ma garanayo waan garan lahayn aniga ma aqaano marka caqabad maxay tahay asleedahay wallahi ma garanayo waxay tahay aniga waxay tahay ma garanay halkaasaan fadhiyaa kana hoydaa wixii markaad aragto indhahaaga shaahid ku aragto wax ka sheegtaa anigu aqabad iyo haysato ma garanayo laanta socda waxaan ka codsanaynaa dawladda Puntland awlaad baan haysanaa ilmo yar baan haysanaa halkaasaan ku cadibanahay aniga ma aha dad baa 5 haysto dad 4 haysto oo xafaayado ula oo halka ku wada kaadina ku wada xaaray dhibka haystaa marka inay dawladda Puntland wax nooga qabato anaga wadankeena joogo wadankeena in lagu gumeysto ma aha hadday waxa ii sheegaysa in safaarad ka tirsan gabar Soomaaliyeed cadhufay sidee ku cadhufay maxaa ku tibaarintaas wallahi aniga ma joogin gabdhaha ii sheegay mid intii aragta adiga ma aha qofkii la cadhufay ha aniga ma joogin laakiin aniga ilmaan cunto siisanay waxa lagu yiri gabadha waa joogtaa way ku warsan doontaa waxa intay wax warsatay uu cadhuf to ku sii warqadaha maxaa noogu yeerin weyday marka gabadha joogta ka warsantaas hadda qoraxda aad buu kulushahay dabcan waa dareemayna ilmo yar wadatid haddii sana ku socoto maxaa rajaynaysaa hadda maxaan suubinayaa danta waxay noqonaysaa inaan gurigayga u noqdo rafaadka ay haysto danta taas ay igu noqonaysaa awal fiisa Itoobiya maxaa ku filaysaa fiisa Itoobiya waxaan ku filayay process baa iiga xireysan meesha oo ilmaha marka dawladda maxaa u jeedinaysaa dawladda waxaan u jeedinayaa anaga dad caafimaad u socdaa jiro dad process u socdaa jiro marka dawladda waxaan u jeedinaynaa Puntland inay wax nooga qabato dibka naga haysta geedkaas aan hof fadhino qoraxdaas aan joogno duhurka saas ay tahay hadartan duhurka ay tahay rajaan ka sugayna halkaas baan fadhinaa wax nooqabanaay malaha dawladda Puntland waxaan ka codsanaynaa inay wax nooga qabato halkaas oo dibka na haysta caruur ilmahan haysanaa wax nooga